kala soo dhexbaxaya khudbadii uu jeediyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani dadku waxa laga yaabaa inay inta iska dhageystaan hadalka aysan baarin aysan ma taqaanaa in sheeg dabagelin khudbadii uu madaxweynuhu jeediyay hal horena waan ka hadlay markii uu soo dhamaaday wajigii labaad ee hawlgalka calmiska waxa ka muuqatay madaxweynaha wajigiis ama laga akhrisan karay jirkiisa xogta uu helay madaxweynuhu saamaynta ay dhalin karto iyo sida dadku isugu dhex jireen waa su'aasha koowaad ee dul hooganaysa geerida Lahore waxa iiga jawaabaya madaxweyne Dani oo maxay tahay su'aashaas ama weydiintaas waxa weeye amay ka dambeyn karaan dilka Lahore dawladaha shisheeye si fiican dhageyso dawladaha shisheeye oo وحكتيضا بحيي أما معلومات كود ودسي كواسو داعش كو أبوري بورليدا على المسكات لاهور وحكو غيريو دي سيدا لشيغي قعنتنا كو هيئة بي اس اف oo ma taqaanay dawladda Imaaraadku ay taakulayso wuxuu ku jiray container ku yaal xirada BSF guri ku dhex yaal qolkiisu halkaas ku dhex yaalay halkaasana meedkiisa laga helay waxana su'aasha isweydiinta mudan ay tahay ama dawladahaasi sumeeyeen ma taqaanay ama budo ay siiyeen ama cuntada wax ugu direen maadaama iyagu si toos ay u maamulayaan caafimaadkiisa iyo cuntadii iyo sahaydii uu cunayayba waxa arintaas iiga jawaabaya madaxweyne Dani oo cadeynaya in xataa daacishti ku jirtay buurleyda calmiska aysan Soomaali kaliya maskaxdan abaabulinay wadamo shisheeye ay ka dambeeyaan waqtigeeda la soo gudbin doona ila arag in dadka Soomaaliyeed dalkii halis uu ku jiro dalka Soomaaliyeed qorshayaal runtii iyo xogo waqtigeeda la soo bandhigi doona ayaan helnay oo khatar aad u weyn xambaarsan khaasatan daacish qorshayaasha ay lahayd oo waqtigeeda aan la wadaagi doono dadka marka howlgal ku dhamaado waa qorshe runtii walaac gelin kara qofkii mas'uul ah khatarna gelin kara mustaqbalka Soomaaliya waa qorshe aan ku koobnayn dad Soomaaliyeed oo kaliya dad ajnabi ah oo gargixisata ah waa qorshe runtii aan rabin halka inaan ka faahfaahiyo oo khatartiisa leh oo u baahan in si mug leh looga fiirsado aad waad ka qanacday yaan ka soo xigtay xogta مسؤولكي ugu sareeyay Puntland taliyaha ciidamada difaaca Puntland madaxweynaha Puntland baa ii cadeynaya in shacabka tuunkoodu uu jiro xataa dawladaha shisheeye ay qayb ka ahaan karaan ama daacish meesha ku abuureen xogtoodana aan hadda la faafinayn oo aan la sheegayn waxa ii qiraya hadalkaas oo aan ka soo xiganayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani isagoo laftigiisu uu arintaasi diiday in hadda aan la sheegin oo waqtigeeda la shaacin doono reer Puntland oo tuunkii naas madaxweynaha ka jawaabay sidaas ula socda mar kale waxaan ku celinayaa in muuqaalkii 28 daqiiqo ah ee madaxweynaha Dani ay ka duubtay warbaahintu ee uu jeediyay markii uu soo dhamaaday wajiga labaad ee hawlgalka ay ku jiraan macluumaad kasta iyo xog kasta oo daacish laga heli karay ama ku saabsan wax kasta oo dhacay muddooyinkii ugu dambeeyay markii hawlgalku uu soo gaaray wajiga saddexaad hadday ahaan lahayd taleefanadii lagu burburiyay tuulada Carta ee degmada Carmo hadday ahaan lahayd gaadiidka ay daacish gubayaan ee magaalooyinka Boosaaso iyo Carmo iyo gobolka Bari uga soo qaadi jiray